السلام عليكم خير يا برادة نذير جنيا والويني هالكنا بريك في رقات one of my favorite spots ما شاء الله you know marka aad kambanigaaga jeceshahay ee naftaada saaxiib la yar noqoto yaa marba waxaad doonaysaa meel yaroo qurux badan inaad geyso yaa ood soo yara maaweeliso ood soo yara marxabaysiiso weligaa ha u waayin naftaada inaad saaxiib la noqoto marar badan baan idiin sheegaa qofka keliya ee nolosha aad tirsan karto ee ma garanaysaa aad isku halayn kartaa waa adiga mar walba lahow barnaamijyo kuu gaara waqti kuu gaara lacag kuu gaara meel kuu gaara ilaa iyo xataa meelo qalbiga ku yaalla iyo imaginationka oo aad keligaa duusho aad keligaa aado because qof kale oo bini aadana iskuma halayn kartid bini aadanku ilaa iyo ubadkaaga adiga lagaa soo gooyey waa suubis waa dheeraad geeri iyo nolol baa ku kala tegaysaan labadaba qofka keliya ee aad tirsan karto waa naftaada saaxiib la noqo ha ka biqin inaad keligaa dhoofto ha ka biqin inaad keligaa filin gasho ha ka biqinoo ha ka gaabsan inaad keligaa meel yaroo qurux badan fadhiisato restaurant yaroo qurux badan intaad tagto inaad corner table qaadato waad iga maqasheen marar badan anigoo intaa corner table ka hadlaya corner table was always my table whether noloshayda qof soo galo or not markaana tablekaygii ii gaarka ahaabaan qofkaygii suubiska ahaa geystaa ma garanaysaa oo la fadhiistaa marka kalena that table is always reserved for me that corner table that beautiful spot yaa waa baalashaada weeyaan baalashaada yaan lagaa rifin waayo haddii kale markuu qof gaarihi noloshaada soo galo ama special kind of person ayaad yara excited noqonaysaa markaasaad odhanaysaa okay kaale halkan aadne kaale halka aadne kaale kadhish yaa hadhow waxa dhacaysa ila geeri iyo nololba waa lagu kala tegayaaye haddaad qofkii isweydaan inaad isku buuqdo inaad lonely murugo iyo ma garanaysaa iyo tiiraanyo dareento inaad barida intaad dhulka ku dhufato aad ka kici kari weydo because farxaddaadii ayaad ku xidhay iyo enjoymentkaagii qof kale oo bini aadana halkaad u arki lahayd qofkani markaad wada joogtaan ama aad isheshaan xataa friends hadday yihiin the people you like ummadda aad isjeceshihiin ehel iyo asxaabba mar walba waa icing on the cake yaa waa icing on the cake icingka baa anigu ma jeceliyo runtii keega laakiin dad baa jecelnay sprinkles iyo icing iyo wax dul saartaan ma garanaysaa ama ice creamka ay ku darsadaan waxyaaba yararoo kaloo dhanaan iyo macaan yar u yeelaan that's what it is qofka noloshaada soo gala ama asxaabtaada ama jacaylkaaga ama ninkaaga ama whatever mar walba ha kuu ahaado icing on the cake yaa waa inaad lahaataa dabeecadda aad ice creamka keligii ku cuni karto ama keega aad ku cuni karto aad ku jeclaysan karto without the icing extra ma garanaysaa haddii la kala tago oo waqtigu yimaado dee la kala soconayay waxaad mar walba isku hadhaysaan naftaada ayaad mar walba isku hadhaysaan la saaxiib heshiis la ahow naftaada u tareengaree inay noqoto ruuxda ama qofka aad jeclaan lahayd inaad jamato si aanad bannaanka wax kale uga raadin si aad bannaanka markaad dad kale iyo wax kaloo qurux badan ku aragtana ahaa aad u tiraahdo aad u enjoy garayso laakiin naftaada ha kuu noqoto coming home there's no place like home fasax markaad tagto meel kastoo qurux badan wax walboo qurux badan aad samayso meel kastoo bilic leh oo aad tagto sariirtaada wax ka wanaagsanay ma jirto
sariir kastoo raaxa leh oo qurux badan oo aad ku seexato hotel kastoo cajiib oo aad degto there is no place like home gurigaaga wax lamidi ma jirto barkimadaada yar ee aad ku yara candareerootay iyo go'aaga haddaad doonto ma garanaysaa 10 cisho straight kuu saarnaa nothing fancy markaad timaado weeye markaad sida wanaagsan u seexanaysaa naftaadu ha kuu ahaato halkaas oo kale fahantay no place like home naftaadu ha kuu noqoto gurigii iyo rugtii iyo raaskii aad ku soo hiranaysay yaa dhibaatada ugu badan waxa keena ee dadku ay marka qof noloshooda ka baxo ay isugu buuqaan waayo markii horaanay naftooda ku qanacsanayn markay keli isku noqdaan ma jecla qofka ku soo baxa qofka ay la keliyeystaan ay isku keliyeystaan yaa dabeecadahaaga ha ahaato sidaad bini aadanka ula dhaqanto ha ahaato sidaad u nooshahay ha ahaato maybe xaasid haddaad doonto baa tahay qofaan dadka kale wanaag la jeclayn baa tahay dad ka masayra ama ka xumaada dadka kale wanaagooda iyo farxaddooda ayaa tahay waxaasoo dhan ayaad ku keliyeysanaysaa hadhowta laakiin markaad tahay qof dhidibadu u aasan yihiin oo cagaha si fiican dhulka ugu haya oo ummadda kale wanaag la jecel oo intaad jeceshahay ummadda kalena la jecel oo naftaada ixtiraama dadka kalena ixtiraama oo waxa weeyaan wanaag jecel inuu ka shaqeeyo oo had iyo jeer jecel ma garanaysaa rug iyo raas qurux badan iyo meel kuma xidhna guri weyn oo kuma xidhna ma garanaysaa wax faansiya barta yaree aad haysato ilow hal go' maad lahaati yaa intaad qaado dhowrkii cishaba mar maydha meeshaada yaree aad degan tahay nadiifsadoo hagaajistaa because qofka isku kalsoon ee is haysta ee dhidibadu u aasan yihiin qofnimadiisa iyo shakhsiyadnimadiisa waxaan oo dhan ka weyn buu ku xidhan yahay truly ilaahay baad ku xidhan tahay you will never be lonely weligaa haddaad naftaada jeceshahay ood ixtiraanto oo aad isku kalsoon tahay ilaawi maysid inaad wax ka sii weyn waxaan oo dhan haysatid mar walba kambanigii ilaahay aad haysato you never walk alone yeah you will enjoy dadka markaad la joogtana waad enjoy garaynaysaa markaad keligaa isku noqotidna you'll enjoy it sometimes maybe even more because you like qofkan aad kelida ku tahay yaa laakiin sidee lagu noqdaa qofkaasoo kale training bay u baahan tahay maaha wax iska yimaada maaha years and years of training bay qaadataa especially marka aynu nahay gabdhaha soomaaliyeed ee ka yimid guryo aan aabba joogin for example ama aan lagu train garayn oo loola dhaqmin sidii ay qof bini aadana oo buuxo oo naf gooniya leh oo dabeecad gooniya leh oo aan inta badan waxaa laynoola dhaqmaa inaynu u noolahay dad kale sharaftii dadkaad xiirnaysaa qoyskaagii walaalaha cid ma fahmaysaa ummad kale ayaad u nooshahay hooyada aabbaha walaalaha qoyskaaga tolka waa adduun yaa ayaad u nooshahay qof ummad kale oo dhan u nooli isma baran karo dee isma baran karo cid walbaa ku leh ilaahay ka sokow ilaahay baa xataa lagaaga soo ka maraya deetana waxaa dhacaysa inaanad isaqoonin inaanad weligaa isbaran boqolaal qof oo kale aad xiirinaysaa dhaqan aanad xataa jeclayn oo adiga aan weligiiba kuu ronayn baad xiirinaysaa bulsho aan iyaguba ku danaynayn oo dan iyo muraatoona kaa lahayn ayaad intaa ka fekeraysaa siday ii arki doonaan yaa maxaa lay odhan doonaa maxaa layga sheegi doonaa you are never free to be who you are markaan idhaahdo free ma aha inaad waalato oo wax walba samayso futada ka ruxdo social mediaha oo naasahaaga marba xabad intaad gacanta soo qabato aad meelaha la marmarto dadka aan isku kalsoonayn baa waasho oo siyaabo iimaan la'aan iyo dhaqan xumo iyo fadarnimo ah u dhaqma because waa dad israadinaya marka aad istaqaano ee aad isjeceshahay ee aad isbaratid qof walbaa wuu isjecel yahay jeclaanta waxaan ka wadaa ixtiraam iyo sharaf iyo cisiyo karaamo isku og ciyaar lagugu soo dhici maayo xataa dadka noloshaada soo galaa ama ha ku jiraan ama ha ka baxeene ciyaar kuugu soo dhici maayaan xataa hadday ma garanaysaa ay yihiin dad khalada oo noloshaada soo galay oo markii hore siyaabo yaryar oo sibiqa kugu soo galay way kuu fududaanaysaa inaad markiiba dareentid dadka ay yihiin yaa markaad waqti isu heshaan waxaa kuu fududaanaysaa inaad dib uga guratid oo dib uga baxdid laakiin haddaanad isaqoonin dad kalaad iska raadinaysaa intaa waayo dhaqanka aynu ku soo kornay baaba ah qofku inaanu weligii isbaran that's why markaad ku tiraahdo dadka qof maa tahay
qofka odhanayaa heblaayaan hay maaha heblaaye hebel baan hay heblaayaan hay waxaaye waxaasi waxaasaan jeclahay waxaaye waxaana waa necbahay xuduudkayguna halkaas ku eegyahay arki maysa way kuu abtirsanayaan dad magacooda saddexan dadana abtirsiin that's not you who are you maxaad tahay maxaad gashaa maxaad guddaa xuduudkaagu halkuu ku eegyahay waxaasoo dhan waa inaad barataa xornimadu maxay nacam aanad naftaada xor u ahayn inaad ahaato qofka aad tahay simply not inaad waxun samaynaysid ama balwadi yeelin no waxaa ka hadli maayo ma garanaysaa waad ogtihiin waxyaabaha halkan ka taaganahay just to be comfortable with your own skin naftaada inaad comfortable ku noqoto yaa oo aanad bini aadan kale uga mas-uul dhigin farxaddaada iyo noloshaada adiga oo kasii fekeraya maxay ku odhan doonaan you will never be free weliga adduunka qofka bini aadankaa shayga ugu weynee qofka bini aadankaa u baahan yahay waxa weeyaan ugu muhiimsan jiritaanka qofka bini aadankaa waa caafimaad ta labaadna waa xorriyadda labadaas shay ma kala maarmaan midna midka kale kama maarmo caafimaad iyo xorriyad caafimaad kastoo aynu haysanno haddaynu soomaali nahay weliba dumarka soomaaliyeed xorriyad ma haysanno inteena badan xorriyadda in badani khalad bay ka fahantay markay waqti yaroo freedom ay helaan meelaha lagu dilaya lagu bacsanaya ay ka soo baxaan deetana furtay tuuraan that's what pressure ku kala dhas waa qof aan isaqoonin oo limitkiisaba garanaynin wuxuu u haystaa waxyaabahan xunxune uu madaxa isugu tuurayo inay xorriyad tahay no dagaal hor leh oo cusub baad isla gelaysaa because you are in turmoil naftaadii baad dagaal kula jirtaa because you simply don't know waxaad rabto meeshaad ku socoto waxaad jeceshahay waxaad neceb tahay toona deetana dadkii aad lahaystaha u ahayd ayaad doonaysaa inaad haddeer dagaal horle la gasho oo wax kastoy ku odhan jireen maya aad tidhaahdo haa yaa qabiilka ilaali to hell with qabiil markaa reer hebel baan hay reer hebel baan ceebaynaya oo kale ma garanaysaa naftaada iyo qofnimadaada ayaa cid walba ka importansan oo waxyaabaha aynu u baahanay inaynu carruurteenna young people gabdhaheenna weliba khaasatan nimanka ilaa xorriyad xaddhaafa baa la siiyo iyaga asaagood ka reebtayba paralyze ka dhigtay to the point inay waxba qabsan karin dhulkana ka kici karin gabdhaheenna waa inaynu barnaa inay sharaf iyo cisi leeyihiin inaynu la sheekaysanno inaynu tusno karaamada ma garanaysaa ilaahay subxaana watacaala uu abuuray in wax walba ay u baahan yihiin ay halkan ku sitaan waa inaynu carruurteenna marka carruurta soo korayso dadka yaryarow baan idin leeyahay bara hablihiinna in cid waloo kastaaba external ay tahay u koriya kalsoonida maaha inay dumarku inta badan waaba isku ma garanaysaa filan yihiinoo waa kuwaa maasha allah dhexda xidhee meel kasta ka soo baxa markay fursadaha helaan when they get opportunity laakiin si kastoo aynu hard working iyo ma garanaysaa taf u nahay haddana intaa dhowrka shayee inaga maqan baynu raadinaa oo marmarka qaarkood jilbaha dhulka inoo soo dhigaa jacaylkii aabbaho inaga maqan waynu raadinaa yaa intaa waynu raadinaynaa meel baa ina qaqle nin kale oo buuxiye ayaynu raadinaynaa si kastoo isugu haysato gabdho badani inay isku kalsoon yihiin marka finally nin soo galo noloshooda waxaa laga yaabaa in ay ku mintidaan qofkaa si aanu noloshooda uga bixin qof bini aadana ma haysan kartid qofkii ku haysanaya ee doonaya inuu ku haysto yaa ayaad la shaqayn kartaa si aad isu haysataan waa ishaysi ma aha in qof haysto qof lugna halkan kugula taagan lugna banaanka la taagan oo mar walba kuu hanjabayo ma garanaysaa haddaad suuq isu tidhaahdaana dhisabiiraya oo la waayayo oo deetana adigu aad dib isugu mashquulayso ood isu weydiinayso maxaan sameeyey it's not waxaad samaysay awal baa qof kala dhimani kuu yimi you just didn't recognize it hore umaad arag haddii adigu aad qof ma garanaysaa isku kalsoonoo is og tahay kama fekeraysid sidaad u raaligelisaa qofkaas isagu ku dhibaateeyey waxa kuu fududaanaysa inaad fahanto inaad garato because qofkii ugu weynaa ee ugu importansanaa already waad haysataa adigaa is haysta adigiyo ilaahay everything else waa suubis adigaa is haysta ilaahayna waad haysataa everything else waa suubis waa icing on the cake
we have to haddar carruurteenna inaynu barno hablaheena iyo inamadeenaba waa inaynu barnaa inay yeeshaan kalsoonida ay isku filaanayaan inamadeenna laftooda iskuma filla waayo wax walba waa loo fududeeyey xorriyad dheeraadana waa la siiyey xorriyaddii baa deetana dib ugu soo noqotay oo iyagii cuntay to the point aanay waxba qabsan karin in badanoo ka mid aanay koob shaaha karsan karin guriga aanay iska hagaajin karin dibadihii markay yimaadaan ile waa dad wax walba loo fududeeyey adduunkii oo dangerous ah ay dabadeetana sidii falaawir qalalay daataan oo asaagood ka hadhaan labadaba inamada iyo hablahaba waa inaynu barnaa in wax walba oo ay yihiin ay halkan ku sitaan inamada waa inaynu barnaa siday naftooda u teekeergarayn lahaayeen dharkooda u hagaajisan lahaayeen sariirtooda u goglan lahaayeen dharkooda u maydhan lahaayeen ma garanaysaa cuntada u karsan lahaayeen iyagoo yar u ixtiraami lahaayeen dibadaha markay marayaan ma garanaysaa iyo dadka ay la dhaqmayaanba ay u ixtiraami lahaayeen ma garanaysaa entitlementka waa inaynu ka ilaalinaa inay wax walba u arkaan inay xaq u leeyihiin because waa loo fududeeyey wax walba hadhowta waxaas iyagay dib ugu soo noqonayaan oo u cunayaan hablaheennana aynu barno uma noolid cidna qof dhan oo buuxa ayaa tahay ilaahay ka sokow cid kaloo ku lihi ma jirto sharaftaada iyo cisigaaga iyo karaamadaada adiga iskale dhowrso ilaasho isku kalsoonow u sheega inay qurux badan yihiin u sheega inay ismaadh yihiin u sheega in ma garanaysaa ay yihiin shay aan la heli karin ma garanaysaa muhiimadda ay leeyihiin sharaftooda iyo cisigooda iyo karaamadooda tusa si hadhowto iyaguna aanay ugu jabin qof bini aadana oo aanay xataa haddaan aabbahood gurigooda joogin oo involve ku ahayn aan mar kasta oo nin u miliqsado oo laba kelmadoodoo ammaana ku yidhaahdo aanay u kala daadan oo aanay isugu dhiibin ogow geeri iyo nololba waa lagu kala tegayaa the most important person waa adiga noqo qofka aad jeceshahay inaad la noolaato inaad la lugayso inaad la dhoofto inaad filin la gasho inaad wax la cunto inaad wax la qaybsato qofka aad jeceshahay inaad jamato train yourself to become that person noqo u tababar naftaada inaad noqoto qofka aad jeceshahay inaad jamato